war degdeg ah hogaamiyaha dhawaan la sheegay inuu ku soo baxay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu qaaday tallaabooyin waaweyn oo ka dhana ciidanka daacadda ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo sidoo kale mas'uuliyiintii saraakiisha ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee hogaaminaysa ciidanka garabka Lafta Gareen haddaba maxay tahay tallaabada Aadan Madoobe uu qaaday ee ka dhanka garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen isla markaana dad badan ay ku tilmaameen inay tahay mid istiraatiiji ah oo ka hor istaagaysa Aadan Madoobe in dagaal military uu la galo garabka Cabdicasiis Lafta Gareen faahfaahinta ayaan kugula wadaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like sar aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo wahgaaga Aadan Madoobe hogaamiyaha la sheegay in dhawaan uu ku soo baxay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday deegaanada koonfur galbeed ayaa qaaday tallaabo culus oo ka dhana garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen tallaabadii ugu horeysay uu qaaday Aadan Madoobe ayay dad badan ku tilmaameen inay tahay mid istiraatiiji ah kadib markii uu bilaabay in uu kala furfur iyo sidoo kale kala qaybin uu ku sameeyo ciidamada daacadda u ah garabka Lafta Gareen taas oo durba banaanka timid kadib markii gudoomiyihii degmada Awdile maalinimadii shalay ahayd uu ka goostay garabka Lafta Gareen isla markaana uu galay gudaha magaalada Baydhabo kuna biiray garabka Sheekh Aadan Madoobe oo isagu markaasi soo dhaweeyay mas'uulka ka soo goostay garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Aadan Madoobe ayaa la sheegay in tallaabadan uu markaasi si weyn ay suuragal ugu dhigayso inuu ku guuleysto in dagaal la'aan uu soo afjaro ciidamada ku sugan duleedka magaalada Baydhabo iyo mas'uuliyiinta halkaasi joogta taas oo Aadan Madoobe markaasi dadka reer koonfur galbeed ay sheegeen inay tahay mid muddo dheer markaasi looga baahnaa in uu horey u qaado maadaama tallaabadan ay ka badbaadinayso inay isku dhacaan ciidamada Lafta Gareen iyo sidoo kale kuwa Aadan Madoobe daacadda u ah ciidankii ugu horeeyay iyo sidoo kale mas'uuliyiintii ka goostay garabka Lafta Gareen kadib waxaa dhinaca kale soo baxaya warar sheegay in ay jidka ku soo jiraan wasiiro mas'uuliyiin kale oo ka tirsan garabka Lafta Gareen saraakiil iyo sidoo kale ciidamo aad u fara badan oo ku sugan duleedka magaalada Baydhabo isla markaana daacad u ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen goosashadii mas'uuliyiinta iyo sidoo kale saraakiisha ciidan ee garabka Lafta Gareen ka goosatay kadib waxaa si kulul uga hadlay afhayeenka garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Ugaas Xasan kaas oo ku eedeeyay isla markaana ku tilmaamay gudoomiyihii degmada Awdile ee garabka Lafta Gareen ka goostay Aadan Madoobena markaasi uu soo dhaweeyay inuu ahaa khiyaano la qaran tallaabo adag ay ka qaadi doonaan weligoodna markaasi aysan ka hari doonin meel kasta oo uu galo waxaa la sheegay in gudoomiyaha uu la goostay sida afhayeenka uu ka dhawaajiyay 3 gaari oo Cabdibilaa isla markaana ay saaran yihiin qoryaha loo yaqaan dhashiikaha iyo ciidamo dhowr ah oo gudoomiyaha markaasi ilaalo u ahaa waxay dadku tilmaamayaan in suuragal ay tahay xubno kale oo uu ka mid yahay wasiirka amniga gudoomiyihii hore ee degmada Baydhabo gudoomiyihii degmada Waajid iyo mas'uuliyiinta kale ee ku sugan duleedka Baydhabo in iyagana dhankooda suuragal ay tahay inay ka soo goostaan garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen isla markaana u goostaan dhinaca Aadan Madoobaha dhawaan la sheegay inuu ku soo baxay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday deegaanada koonfur galbeed balse Lafta Gareen iyo saaxiibadiisa ay weli si weyn markaasi u diidan yihiin saaxiibada Lafta Gareen iyo sidoo kale saraakiisha iyo ciidamada ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa iyagu weli markaasi ku adkeysanaya inay yihiin maamulka sharciga ah ee ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana uusan jirin maamul kale oo aan kooda ahayn oo sharci ah deegaanada koonfur galbeed in uu ka arimiyana markaasi xaq u leh waxaana maamulka Aadan Madoobe ay ku tilmaameen in uu yahay mid sharci darro ah oo isla markaana la keenay halkaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee iyagu halkaasi geysteen Aadan Madoobe iyo sidoo kale ciidamada ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ayaa hadda dadka tilmaamayaan inay u socdaan xiriiro iyo wada hadallo ku saabsan sidii Aadan Madoobe ugu qancin lahaa ciidanka iyo mas'uuliyiinta ku sugan duleedka Baydhabo in gudaha magaalada ay soo galaan kana soo tagaan safka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyada oo tallaabooyinkan kala furfurista ay kala shaqeynayso dowladda federaalka Soomaaliya Aadan Madoobe isla markaana ay ka taageerayso dhinaca dhaqaalaha si ciidanka iyo saraakiisha ku sugan duleedka Baydhabo ee Lafta Gareen la safan loogu qanciyo isla markaana gudaha Baydhabo ay u soo galaan iyaga oo loo ballan qaadayo dhaqaale iyo sidoo kale xilal markaasi si weyn loogu maamuusi doono marka ay ka soo baxaan garabka Cabdicasiis Lafta Gareen mas'uulkii shalay goostay ayaa loo ballan qaaday in laga dhigi doono gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada taasoo haddii ay hirgasho mas'uuliyiin iyo saraakiil kale ku dhiirigelin doonta inay markaasi ka goostaan garabka hogaamiyaha weli ku adkeysanaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen guud ahaan
dhaqdhaqaaqyada ka soconaya deegaanada koonfur galbeed wixii ka soo kordha wararkii warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka laysar